السلام عليكم أصحابي كسر هذا مقال كنا يوتيوب ما أنت وحن سلاقينا حيوانو يدك لها أو مركلة دبو كل مي حدا أنت المقال كوكلي حدي أنو عصب تانو صبير لا يكتقرح مقال كحن سويناه أنو قد قلنا مقال كنا let's go فلاك فالعلن تقرح ذا بدن أي بحين سجوشان يا قابك أي هبتو سينسو نينكان أو واحد ديب ولا كلانتي نينكي بدبادي سنوين كور فالعلن تيدو وأنا ذا الليفل ما دقال بيوسعتا مايا ديب أيو كل مين عجيب قده درين كيدو هذا يوسريا الله حيوانكو وحوم إلاو بل ايق نيف كان قيلهي ايا داد تربضان كدحان قوصدي نينكي لها وحانا كم مقاطع إنو سندونين إنو سيدايو يوتيوبر أي كحرينيهين داد قاري 6 مليون أو سبسكرايب أيا ديبو أرق حيوانكي وكورسدي isagoo arag muddo gaariya 2 isbuuc iyo dheeraad bal eeg qaabka ay uga falceliyeen soo laabashadiisa top level cid uu dhawaaqayo ma ahan shimbir ay ama faras balse waa raxan maroodi ah kuwaas oo isla soo koreen ilaa yaraantiisii qaabka falcelintoodu waa heer sare maroodigan yari waa mid dareenkiisu aad u sareeyo maadaama uu dib u arkay haweeneydii xanaaneyn jirtay gudaha beerta xayawaanaadka wuxuu ka joojin waayayba shumis waaw xoolo ninkii u roon baraace kii lahaa eegan ayaa ku jiray cusbitaalka balse eegan ayaa maalin kasta imaan jiray iridda cusbitaalka si uu u arko ninkii korsaday ugu dambeyntiina way kulmeen dareenkiisu waa mid aan la qiyaasi karin sacabka ka ilaawin eeg qaabka ay uga falceliyeen kooxdan yeydahi kadib markay la kulmeen haweeneydii soo korsatay iyagoona isku dambeysay 2 bilood haweeneydan ayaa xanaaneysay gooshan ilaa ay jirtay 4 sano iyadoona soo booqanaysay maalin kasta bal eeg falcelinta goosha cajiib qof kasta wuxuu raadinayay shimbirtan taasoo ka soo luntay ninkii lahaa balse baraha bulshada ayaa ka caawiyay inay dib u kulmaan ninkan iyo shimbirtiisa وقالكان درينكيس أيو وطا طبعاً ما أهان حيوان ديب ولميدو بعيدي له وإن أيغان ينيف كان لوضاهي وحير قطة دير وكدحيو بلسي نينكي لها يان قواسدي إنو إيبي نيف كان لوضاهي بلسي واحا حالد آن فعنين قلي أيغي إلا أو نينكي كقواسدي إنو ديبسو إيبي نيف كان لوضاهي عجيب ساعبك وكل افتهي ساعبك عادي ما أهان واحا ولكي دا لايكتو مقالك libaaxani ayaa xaalad aan wanaagsaneyn galay kadib markii meesha ay ka tagtay haweeneydii daryeeri jirtay isagoona xitaa diiday inuu wax cuno ilaa ugu dambeyntii uu dib ula kulmay haweeneydii soo xanaanisay allah waa cajiib haweeneydan waxay soo booqatay xayawaanka kangurugahay ee beerta xayawaanaadka raxanta maroodiyaashahi ayaa subax kasta u soo orda dhanka saaxiibadood sida inay leeyihiin subax wanaagsan maroontihiin xaalkiina ka warma iyo wixii la mid ah bisadahan waaweyn ayaa waqti fiican la qaadanaya ninkii iska lahaa waxaana ka muuqata dareen farxadeed oo aad u sareeya cajiib dabcan macquul maaha inaad xayawaan sida libaaxa oo kale aad u gasho xindaabkiisa balse ninkan raxanta libaaxahi ayaaba ku soo sumumtay eegan farxad daraadeed ay u soo xigaaray kadib markii uu la kulmay 2 sano ka bacdi haweeneydan oo iska lahayd unbelievable kadib dhaqaale xumo soo wajahday qoyskan waxay iibiyeen faraska gabadhooda balse 4 sano ka bacdi ay dib u midoobeen bal eeg falcelinta gabadha waxaan dhihi karaa lama filaankii u quruxda badnaa ay helaan qoyskan waxay ahayd markii ay weysanaayeen eegoodii 3 biri balse si la yaab leh ayuu guriga u soo laabtay bal eeg dareenka qoyska ninkan wuxuu bisadan ka maqnaa 3 biri bal eeg qaabka ay uga falcelisay imaanshiisa ninkii lahaa bal arag ninkan siduu u salaamay eegan kadib maalin dheer oo shaqo ah salaantoodu waa another level
halkaas ayuu ku joogaa muuqaalkeena maanta nabadgelyo.